waxaa la isku raacay ninkii lagu qabto burcabadeed ama lagu dilo in amniga iyo dawladda waxaa la isku raacsan yahay iyo shacabka haddii maanta shacaba lagu dhufto inuusan diyo lahayn mana rabno burcabadeed annaga reer Sheekh baana la yidhaahaa mana rabno ceelaan joognaa mana doonayno wax allaala wixii nabadgelyo xuma samaynaya go'aan baa laga soo saaray go'aankaasoo ah in meel allaala meesha lagu qabto ciddii wax lagu gaarsiiyo aysan ahayn wax xaquuqa iyo wax diya aysan lahayn ilaa eeriyada ceeldhanaane iyo galhagoog ilaa dhinowda inta u dhaxaysa dadka jooga waxay diyaar u yihiin inaysan burcabadeed ka mid noqon ciddii burcabadeed ee taakulaysana sharciga in la marsiin doono hawlgal ah burcabadeedda in laga hortago waxaan rabnaa in maamulka Puntland iyo deegaanka iyo dadka shacabka kulli waxaan rabnaa inaan si isku mid ah aan iskaga hortagno xooga saarno iska riixno iska saarno baan rabnaa oo daacad ah baa maanta iskugu nimin ceelanaane niman reer Shiiqa oo reer Loobaga baa jooga dawladda Puntland waa noo timin ayadoo nala kaashanaysa maamulka anoo la kaashanayna leeyna waaxigeeda inaan wax burcabadeed ah oo iyo wax la shaqeeyo midna inaysan dhicin waxaa la isku raacay ninkii lagu qabto burcabadeed ama lagu dilo in amniga iyo dawladda waxaa la isku raacsan yahay iyo shacabka haddii maanta shacaba lagu dhufto inuusan diyo lahayn mana rabno burcabadeed annaga reer Sheekh baana la yidhaahaa mana rabno ceelaan joognaa mana doonayno nafteena ma imaan karno niman culummo ahaan nahay mana doonayno mana ka shaqaynayno hadday yimaadaanna gacan birahana ku qabanaynaa inta nagala shaqaysana waa soo dhawaynaynaa bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin ugu horreyn waxaan salaamayaa gudoomiyaha degsimada Garaacad iyo qolada warbaahinta Deex TV salaan ka bacdi waxaan rabaa inaan maanta miidiyaha ka sheego haddaan nahay annagu beesha reer Loobaga waxaan isla qaadanay wax burcabadeed la yiraahdo inaysan na saamayn inaysan noo imaan inaysan wax nagu darsan waxaan idinla qaadanay go'aankii ahaa in burcad iyo wixii saameeya alla soo dhaweyn halkaani waxa weeyaan dadka jooga badadood waxay isku raacsan yihiin burcabadeed iyo wax quseeya inaysan soo saamayn waana kala shaqeynaynaa amniga iyo deegaanka ilaa eeriyada ceeldhanaane iyo galhagoog ilaa dhinowda inta u dhaxaysa dadka jooga waxay diyaar u yihiin inaysan burcabadeed ka mid noqon ciddii burcabadeed ee taakulaysana sharciga in la marsiin doono annaguna aan qarsan doonin waxaan halkaan u soo booqannay halkaan u nimid hawlgal lagu sugayo ammaanka guud bad iyo biriba aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa xildhibaane iyo taliye cawil sidaad ammaanka u sugaysaan sidaad ugu shaqaynaysaan maaragtay deegaanka iyo dadka waxyaalaha fidnada ah waxaa la rabaa inaad sidii aad maaragtay awal uga hortagteen aad uga hortagtaan waanad ku mahadsan tihiin shaqo muuqata baad qabateen waxaa la rabaa in halkaas laga sii wado aan iskana kaashanno wax allaala wixii keeni kara ammaan darro noocay doonaan ha aadeen bad iyo beri meeshay doontaba ha ahaatee in laga hortago waxyaalaha ayaguna la midka ah oo daroogada ah oo maaragtay waxaasoo kale waysa suran yihiin waxaan rabnaa inaan iska kaashanno gacmaha iska qabsanno hadda waxaa jira go'aan ka soo baxay odayaasha deegaanka degmada Jariiban beesha Cabdi Ciise beelaha kale Cumar Maxamuudna maanta ay soo saarayeen go'aankaas waxa weeye go'aan looga hortagayo wax allaala iyo wixii nabadgelyada lid ku ah wax allaala wixii isbaara dhiganaya ama bad ha dhigteen ama bir ha dhigteen wax allaala iyo wixii ka shaqaynaya daraagis sida khamrada iyo xashiishka iyo wixii la mid ah wax allaala wixii nabadgelyo xuma samaynaya go'aan baa laga soo saaray go'aankaasoo ah in meel allaala meesha lagu qabto ciddii wax lagu gaarsiiyo aysan ahayn wax xaquuqa iyo wax diya aysan lahayn waa go'aanka kaliya oo marka lagu hawlgali karo oo wax lagu qaban karo insha Allah cidda reer Shiikha wanaag baan ku naqiinay culimaan ku naqiinay quraan iyo hadda waxaan ku naqiinay
khayrka loogu imaan jiray waxaan rajaynaynaa idinkuna go'aankaas oo kale inaad soo saadhaan odayaasha inaad warkaa gaarsiisaan in la isla qaato qofkii waxun ka shaqaynaya iyo kii soo dhoweynayaba haddii howlgallada lagu jiro ay wax ku gaaraan inuu yahay qof hudur ah oo dhintay oo wax xaquuqa iyo wax diyaah oo uu leeyahay aysan jirin saasaan rabnaa haddii alla idmo idinku odayaasha inaad gaarsiisaan odayaashuna ay soo saaraan dhammaan ummadda reer puntland ama ummadda soomaaliyeedna go'aankaasoo kale inay qaataan baan ugu baaqayaa maadaama ay maaragtay danteennu ku jidho oo qofka maaragtay saqajaanka oo dhibaatada dadka dhexdiisa ka samaynaya ama waxa xun u soo jiidaya oo sumcaddarrada ah aan si kale looga hortegi karin in go'aan midaysan laga qaato lagana dhigo haddii uu dhinto iyo hadduu dhaawacmada waxa weeye qof aan xaq lahayn oo xuquuq lahayn haddaan sidaa laga dhigin leeyahay wiilkaygii baa wax gaareen isagoo ama isbaaro dhiganayey oo dad laynayey ama khamro maaragtay ka shaqaynayey ama burcadbeednimo ka shaqaynayey haddii la yidhahdo wiilkayguu ahaa iyo adeerkaybuu ahaa waxa weeye dhibaato ka bixi mayno insha allah marka go'aankaas odayaasha degmada Jariiban gaar ahaan beesha Cabdi Ciise way qaateen beesha reer Shiikha hadda aan la joognana go'aankaas nala qaataan baan jecel lahay